madaxa guddiga doorashooyinka ee heer federaal, suxufiyiinta iyo xubnaha kale ee ka socda miidiyaha iyo dhammaan marti sharafta kaleba, waxaan idin leeyahay horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. igana guddooma salaan idinkaga timid ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. salaan kadib, marka ra-iisul wasaaraha uu yiri shirkan maanta ma tegi kara, waxaan rabaa inaad igu matasho. waqti dambe ahayd waxaan markaa is-iri halkan maanta waxaa isku helaysaan keliya qolooyin ajnabi ah, ma filayn marka intaanoo Soomaali ah inay meesha fadhiso. khudbadayda waxaan ku diyaarsaday iyadoo Ingiriisa, laakiin waxaan ka faa'iidaystay wax yar intii aan halkan fadhiyey oo aan maaragtay is-iri bal maxaa halkan ku habboonoo aad ka oran kartaa. haddana nasiib wanaag wasiir ku-xigeenka warfaafinta intaan oran lahaa hadal nuxurkeedu wuu dhameeyey. isagaa marka intaan idin oran lahaa iyo in ka badanba runtii sheegay. keliya dhowr qodob inaan maaragtay dul istaagaan rabay. kow, waxaan rajaynayaa horta inaad wada dhuuxdeen culayska tusaalayaasha uu soo qaatay wasiir ku-xigeenka, oo kuwa annaga si toosa noo taabanaya ay yihiin. waxaa kaloo isagana tusaalayaal soo qaatay Simon oo ka hadlay dalka Rwanda iyo South Africa iyo dhibaatooyinka ka dhacay markii ay dadka qaarkood ku hadleen hadallo muujinaya nacayb. oo loogu geystay dad badan oo aan waxba galabsan iyo hantidoodiiba. qof walba ha ahaado siyaasi, xukuumad, suxufiyiin, kulligeen waxaana saaran mas-uuliyad. waxaan ii muuqatay inaad dareemaysaan mas-uuliyaddaas idinka saaran, gaar ahaan waqtigan xasaasiga. midda keliya oo aan rabo inaan si fiican iskula fahanno, dalkeenna jidka keliya oo maanta u furan ee uu isbeddel siyaasadeed ku imaan karo waa doorasho. dalkeenna isbeddel siyaasadeed kuma imaan karo qalalaaso. waddamada qaarkood waad ogeedeen mudaaharaadyaha ka dhacayo, saas darteeda isbeddel siyaasadeed ku yimaaday. laakiin annaga hay-adaheenni dowliga ahayd iyo dowladnimadeennii iyo shacabkeennii runtii aaday u jilicsan yihiin weli. haddaan doorasho la gelin, sidee kale oo wax isku beddeli karaan? si kale oo wax isku beddeli karaan male aan ka ahayn burbur. burburna wuxuu ka bilowdaa hadal aan mas-uuliyad saarneyn, aan culays lahayn, oo si sahlan loo yiraahdo oo dadka markaas ay wax kaga burburaan. tan labaad oo aan rabo inaan taabto iyadana waxay tahay, waxaa ogaataan dadka tartamaya waxaa naga dhexeeya tartan ee nacayb nagama dhexeeyo. dadka tartamaya waxbay ku tartamayaan, laakiin nacayb kama dhexeeyo. qaabka ay ugu tartamayaan iyo sida ay u cabiraan hadalkooda keliya wax xumayn karta. marka waxaan doonan lahaa iska diida hadal aan mas-uuliyad ku jirin idinkoo dhowraya xorriyatul qowlka.
taas haddaan intaas uga baxo ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking